subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax khamiisa bisha Mayna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mijirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo saakana idaacadda waxa xanuunka COVID-19 dartii guryaha idinka soo gudbinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Cabdi Xaafi Caawil Ismaaciil. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Beledweyne kadib markii wabigu mar kale magaalada ku fatahay. waxaan joognaa Bulxaabley waa markii afraad ee biyahana soo galeen oo dhibka noo geystaan musqulihii naga dumiyeen guriyihii naga dumiyeen guriyihii qaarkood qaar 4 mitir qaar 3 mitir ay joogaan qaar 2 mitir ay joogaan qaar 2 mitir iyo bari ay joogaan hadda wax joogaan meelaha wax jooga ma leh. waxaad sidoo kale dhageysan doontaan gudoomiyaha gobolka Minnesota oo ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ah dhaqaalaha dib loo furi doono. waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda dalka Jarmalka kadib markii dhaqaalaha dib loo furay iyo wanaagga ay leeyihiin 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. marka hore warkii caalamka oo noo soo jeediyo Cabdixaafid Caawil Ismaaciil. xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in xanuunka COVID-19 awgii ay u badan tahay inay qaab muuqaal video ah ay bisha August ku magacaabaan inuu Joe Biden yahay murashaxa uga qayb galaya doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka ee bisha November oo aanay u magacaabin qaabkii caadada ahayd ee la isugu iman jiray meel madal ah. gudida xisbiga dimuqraadiga ayaa u ogolaaday kooxda ka shaqeynaysa hawshan inay yeeshaan qorshayaal kala duwan oo ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadaasi oo markii hore loo qorsheeyay inay ka qabsoonto goob lagu cayaaro kubadda koleyga oo ku taala gobolka Wisconsin 17 bisha August. caadiyan munaasabadan ayaa magaalooyinka lagu qabanayo waxaa taga dad gaadhaya ilaa 50,000 oo qof waxaana ka soo qayb gala ilaa 5,000 oo wafdi ah iyo 20,000 oo ka socda warbaahinta dalkan Mareykanka iyo caalamkaba. boqolaal qof oo careysan ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee qaybta Hindiya ee maamusha ee gobolka Kashmir kadib markii ay askartu toogasho ku dishay nin bar control. dilka ninkan ayaa imanaya iyadoo ay xiisada ka taagan tahay gobolka aad u kacsan tahay tan iyo markii ay dowladda New Delhi ka qaaday xeerarka ismaamulkii ay lahaayeen laguna soo rogay bando. Mehrajuddin Beershah oo 25 jir ah ayaa isagoo wata baabuur ay askartu ku toogatay bar control oo u dhow Srinagar oo ah magaalada ugu weyn ee deegaanada muranka ragaaday uu ka taagan yahay. askarta ayaa sheegtay in ninkani uu istaagi waayay 2 bar control xilli lagu jiro xaalado shaki ah ka hor intii aanay askartu gaadhigiisa rasaas ku furin. dad badan oo degan gobolkaasi Kashmir gaar ahaan qaybta ay Hindidu maamusho ee ay muslimiintu ku badan tahay ayaa sheegay inay tani tahay marmarsiyooyinkii caadiga ahaa ee booliiska Hindiya oo ay ku eedeeyaan inay xasuuq baan ka geystaan gobolkaasi. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. Ramadaan wanaagsan markale dhageystayaal. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa mar kale ka dhacay fatahaado uu sameynayo webiga Shabeelle. fatahaadahan ayaa keenay barakac ay dadka magaaladu sameynayaan muddo 7 bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee ka dhacda bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2019. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha iyaga Xuseen Xasan. magaalada Beledweyne waxaa ku soo fatahay webiga Shabeelle sanadkii afraad oo xiriir ah. wax ka yar 7 bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee bishii Oktoobar 2019. guddiga gurmadka Beledweyne ayaa dadaal badan geliyay sidii ay magaalada uga hor istaagi lahaayeen in fatahaadda ay soo gasho, balse biyo badan oo ka yimid dalka Ethiopia ayaa hal bacaad lagu lisay ka dhigay dadaalkii ay wadeen. magaalada Beledweyne waxaa soo galay raxmadii Ilaahay, biyo aad fara badan baa yimid
walow ay xanibaad ku sameeyeen biyihii oo ay isku dayeen inay celiyaan deedna waxa weeye ay celi waayeen oo tarkii ugu faraha badnaa ee Itoobiya uu ku yimid soo furteen wax hadda dhibaato ay geysteen ama dad ay laayeen ama guriyay dumayeen midna maanan maqan ma jirto laakiin waxay sameeyeen qarbudaad oo biyo xireenkaasi markii hore aanay ka fiirsan intay gaarayaan tankoodu ayaa dhibka keenay biyuhu hadda way socdaan waliina way xiriir hadda way takaaraysan yihiin marka waxa fiican biyahaas in aan la taabanin waa raxmad Ilaahay sanadkiiba mar bay yimaadaan magaalada Beledweyne ayaa mar kale waxay wajahaysaa culays dhinaca dhaqaalaha iyo dhibaatooyin kale oo fatahaadda ay magaalada u geysan karto 90% biyuhu waxay camimeen magaalada dadka intooda badanna waxay u barakaceen dhulka taagaga ah iyo degmooyinka kale ee gobolka waxaan joognaa Buulxaabley waa markii afraad ee biyahana soo galeen oo dhibka noo geystaan musqulihii naga dumiyeen gurihii qaar 4 mitir qaar 3 mitir ay joogaan qaar 2 mitir ay joogaan qaar 2 mitir iyo bari ay joogaan hadda wax joogaan meelaha wax jooga ma leh waardiye ma ogi wax kale jooga ma leh annaga hadduu Ilaahay ku roon waxaan iskugu tanaa meel boqo yar oo qalalan meeshaasaan iskugu tagnaa meeshaasaan fadhiisanaa ka bacdina macnaha qaneecadana waa iska jafnaa saasaan iskaga jafnaa haddii Ilaahay ku roon meeshaasaan joognaa marka waa go'doon macnaha oo biyo baxday go'doon ugu sameeyeen macnaha biyaha ugu go'doon waana Ilaahay amarkiisa alxamdulillah rabbil caalamiin waa wax Ilaahay qadaray subhanahu wa ta'ala fatahaadan ayaa imanaysa iyadoo dalka uu ka jiro halista COVID-19 maadaama dadka lagu amro inay kala fogaadaan waxa dhici karta in boqolaal qoys ay hal meel u barakacaan dadkii oo barakacay oo ayagoo qaxootiga banaanka kuleelka ay aljaale isturtuban taasoo markaas sababi karto inuu sii fido cudurkii saamaynta kale ee gudaha ka dhalatay ay tahay si fatahaadii weyneed oo ka barakacaysa dadka kuwaasi ma haystaan hoy ma haystaan meelay kanaacadii ka galaan ma mara kanaacadii ma haystaan waa xilli roobaad meelay roobka ka galaan ma haystaan caqabadaha runtii magaalada soo wajahay 48 saac ugu dambeysay intaas ayaa ka sidahay fatahaadda sanadkan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu jiro bil Ramadaan dadkuna ay isu diyaarinayaan Ciidul Fitri laakiin wax ku dhow 2 toddobaad ayaa la qiyaasayaa in biyaha ay magaalada ku sii jiri karaan haddii maaragtahay ay masiibo timaado ummadda shacabka Soomaaliyeed maaragtahay waxa wanaagsan inay maaragtay waxay horta qofku soo wuxuu malaysana iyo wixii alla xaqiisa ka yimaada laba kale moogta anagu iidaan rajaynaynay magaaladan inaan ku iidaan rajaynaynay farxadaan rajaynaynay laakiin ma aysan noqon biyaa yimid masiiba timid maaragtahay waana ka baxnay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in ayagoo magaalada nooga baxay iidun ugu soo arinta rajaynaa insha Allah Xuseen Xasan Dhaqane Beledweyne aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasina la socodsiinayay warbixintaasoo muuqaalana waxaad dhegeystayaal ka daalan kartaan barnaamijka qubanaha VOA idinkoo booqanaya website-kayga voasomali.com dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in shaqaale badan oo ka soo jeeda dalalka bariga Yurub kana shaqeeya goobo lagu gowraco xoolaha laga helay xanuunka COVID-19 dhinaca kalena markii la khafiifiyay socodka iyo ganacsiga dadweynaha ayaa waxaa kordhay tirada dadka laga helay xanuunkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay ee halka ay wax marayaan waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil Jarmalku dadaal weyn waxa ay ugu jireen inay sameeyaan tallaal ama dawo lagula tacaalo xanuunkan dhinaca kale dhaqaalaha dalka oo xanuunkani aad u saameeyay ayaa dawladdu waxa ay sameysay qorshayaal ay ku dabcinayso isu socodka dadka iyo ganacsiyada Cabdirashiid Caynte waa wariye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka waxaan weydiiyay bal marka hore guud ahaan inuu iga waramo xaalka xanuunka COVID-19 iyo dalkaasi Jarmalka guud ahaan wadanka Jarmalka xanuunka COVID-19 haddii aan tafaasiirka siiyo waqtiga waxa cudurka COVID-19 marayaa dadka u jiifa isbitaalada iyo goobaha guryaha 170 kun buu marayaa inta waqtigan ka bogsatay xanuunka COVID-19 ee wadankan Jarmalka waxa uu marayaa 144 kun buu marayaa dhimashadu waxay gaadhay 7 kun ay waqtigan gaadhay guud ahaan wadanka Jarmalka la khafifiyay bandoogaayeen xanuunka COVID-19 ee wadankan Jarmalka ku suganahay khibrada caafimaadka wadanka Jarmalka waxay ka digaysaa in dadkii ay jabiyeen xeerarkii loogu talagalay in isku jirsadaan 1 mitir iyo badh taasina ay sababtay waqtigan inuu kor u kaco xanuunkii COVID-19 ee ka jira wadanka Jarmalka iyadoo ay hogaamiyaha wadanka Jarmalka Angela Merkel ay shacabka ugu baaqday inay ixtiraamaan
xeerarka amba baaq ay soo jeedinayaan bahda caafimaadka waddanka Jarmalka. qorshayaasha ay dalalka Yurub dib ugu furayaan ganacsiyada iyo isu socodka dadka ayaa kala duwan. haddaba qaab nooce ah ayaa Jarmalku uu isticmaalaya mar kale waa kan Cabdirashiid Dacaynte. waddanka Jarmalka intii la khafifiyey bandowga hore u saarnaa xanuunka COVID-19 waxay dowladda waddanka Jarmalka ay dabool ka qaaday in la xidho maaska lagu xidho afka iyo sanka marka la tegayo goobaha tareemada laga raaco iyo basaska iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee dukaamada laga adeeganayo. dalka Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ugu horumarsan dhinacyo badan oo qalabka caafimaadka uu qayb ka yahay. waxa la naawilayay inuu noqdo dalalka ugu horeeya ee soo saara tallaal ama daawo lagula tacaalo xanuunka COVID-19. maxamed caalin waa aqoon-yahan degan magaalada Helsinki ee dalka Finland. su-aashan ayaanu ka jawaabayaa. sidaan la soconad waddanka Jarmalku waxa la sugayay inuu COVID-19 ama coronavirus inuu tallaal dhaqso u helo. Jarmalku waa ka khasaareeyay marka loo fiirsho wadamada Spain iyo France iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo dad isaga la mid ah 80 milyan in ka badan bay ku nool yihiin. haddana Jarmalku uu ku tacaalaya taradiisu dadka aad bay intaqaan dhimashada ugu yar tahay. marka wuxuu doonayaa haddii coronavirus tallaal loo soo saaray inuu tallaal noqdo tayo leh oo mataqaanaa ra'iisul wasaaraha Jarmalku wuxuu ka codsaday maxadada researchka gaar ahaan maxadka la yiraahdo Paul Ehrlich Institute oo Berlin ku yaala inuu la siiyo budget 750 milyan oo euro. marka Jarmalku wuxuu doonayaa dawo coronavirus ah oo dadku qaadan karaan tallaal dadku dhan lagu tallaali karo caruurtii dadkii xanuunsanaa dadkii caafimaadka qabay oo mataqaanaa uu noqdo si caalami ah. marka Jarmalku wuxuu ka mid yahay wadamada rajada fiican laga qabo ee talaalku uu daahayaa buu yiri wuxuuna qaadanayaa bilowga sanadka soo socda ilaa 6 bilood ayuu qaadan doonaa bay leeyihiin. haddana wuxuu bilaabay tijaabadu dadku ku tijaabinayay. marka rajada Jarmalku way fiican tahay. shaqaale badan oo ka soo jeeda bariga Yurub oo ka howlgala goobo xoolaha lagu qalo ayaa xanuunka laga helay. tan ayaa haddaba waxa ay Jarmalka keentay warwar hor leh iyadoo la doonayo in la dabciyo bandooda. waxaa kale oo jira dad aan sidii la rabay ugu hoggaansamin xeerarka bandooda. ma jiraan haddaba sharciyo oo dadkaasi lala tiigsanayo. Cabdirashiid Dacaynte ayaan mar kale su-aashaasi weydiiyey. gobolada waddanka Jarmalka 16ku gobol kastaba sharci ayuu ka soo saaray. gobolkan aan ku sugannahay ee loo yaqaan Hessen waxay maamulka gobolkan ay sheegeen in qofkii xidhan waaya maaska afka iyo sanka lagu xidho markuu tegayo goobaha tareemada laga raaco iyo basaska in lagu xukumi doono ama lagu ganaxi doono lacag gaaraysa 50,000 oo euro waddankan Jarmalka. waxaa jira iyaguna gobollo ka mid ah waddanka Jarmalka oo ka mid ah gobolka Bayer la yiraahdo iyagoo waxay soo jeediyeen in qofkii afka iyo sankaba xidhan waaya lagu ganaxi doono $150 haddii ay sii socotana la geyn doono in saldhig lagu xiro. dhinaca kale dalalka Yurub oo isu socodka dadka iyo dalxiiska uu ka soo gali jiray dhaqaale aad u badani ayaa iyaguna waxa ay doonayaan inay khafiifiyaan isu socodka dadka u kala safra dalalkooda xilli ay wadamo badan oo Yurub ku yaala ay bilaabeen dabcinta dhaqdhaqaaqa iyo furitaanka ganacsiga. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi nala socodsiinayay. gobolka Minnesota waxaa lagu dhawaaqay in la qaaday xayiraadii guri jooga ee COVID-19 lagu talagalay isla markaana maalinta Isniinta dib loo furayo goobaha ganacsiga oo ay ku jiraan suuqyada Soomaalidu. dib u furista ganacsiga waxaa la socda shuruudo adag oo ay tahay in la raaco oo ay ku jirto in dadku kala fogaado. haddaba Maxamuud Mascade ayaa khadka Skype-ka ku wareystay Xamse Warfaa wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka ee maamulka gobolka Minnesota. maxamuud waad mahadsan tahay guddoomiye runtii go'aamo waaweyn buu ku dhawaaqay galabta oo ujeeddada ugu weyn ay tahay in laga baxayo xilligii maaragtay guri jooga oo loo wareegayo xilligii maaragtay in taxadar iyo dadaal caafimaad uu qof walba sameeyo laakiin shaqooyinkii in dib loogu noqdo. wuxuu guddoomiyuhu si gaar ah ugu dhawaaqay in dib loogu noqon doono la fasaxay shaqooyinka badankoodii tusaale ahaan dukaamada maaragtay businessyada meelaha shaqada badankooda in la fasaxay marka laga reebo makhaayadaha meelaha dadka faraha badan ay iskugu iman karaan sida stadiumka lagu ciyaaro meelaha qalinjabinta meelaha dadka badan iskugu imanayaan mooyaane wixii kasoo haro dhan waa la fasaxay. dadkuna wixii 10 qof iyo ka yar inay isku iman karaan ayaa iyaduna la fasaxay. Xamza marka la leeyahay shaqooyinka ayaa dib loogu noqonayaa oo waa la fasaxay
ganacsiyada markaasi ma la iska fasaxay oo waxay noqonaysaa sidii caadiga ahayd in lagu soo noqdo mise waxaa jiraya shuruudo ku gadaaman oo la doonayo ganacsatada iyo dadkuba inay raacaan amaba ilaaliyaan? waxaa jira shuruudo adag oo runtii la socda furniinka oo lagu badbaadinayo dadka shaqaalaha ah. gudoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay 3 maaragtay sharci oo cusub. mid kamid ah si gaar u taabanayo sida loo badbaadin lahaa caafimaadka dadka shaqada ku noqonaya. waxaa lagu amray shirkad kasta oo dadkii shaqaalaha dib u yeerisa in ay shuruudaad adag runtii ka soo baxdo. shuruudaha waxaa kamid ah in dadku 2 qof 60 feet ama 2 mitir inaan isku jirsan karin, inay arrimaha maaskiga qofku uu xiranayo wejiga maaragtay afdaboolaha uu qofku maaragtay afkeesanka ku xiranayo, in gacmaha maaragtay nadaafinta gacmaha hand sanitizer-ka maaragtay iyadana khasab tahay. marka shuruudo badan ayaa jira, marnaba lagu noqon maayo sidii qorshuhu ahaa intii arrintani coronavirus una dhicin. shirkadii aan shuruudaha buuxininna waxaan ka codsanaynaa inayna dib u furin, laakiin waxaanu rajo ku qabnaa in shirkadaha badankooda ay dib 90% inay dib u furi doonaan iyagoo raacaya sharciyada adag ee aanu maaragtay gudoomiyuhu ku dhawaaqay. waxaa jirta Soomaalidu ganacsiyo ay leeyihiin oo ka xirnaa, مثلا ganacsiyadaasi waxaa ka mid ah suuqyada ay Soomaalidu ku ganacsatay Carmel amaba suuqa 24ka iyo sidoo kale ganacsiyada lagu xanaaneeyo dadka da'da waayeelka. kuwaasi ma ku jirayaan kuwa la furayo? go'aanka hadda lagu dhawaaqay waxaanu xidhnay oo kaliya oo si xidhnaanaya makhaayadaha, meelaha moolasha waaweyn ee magaranaysaay dadka aadka u tiro badan iskugu iman karaan. wixii ka soo haray ma doonayna inaanu dhahno shirkadani way xiri kartaa, qoladani way xidhnaan karaan, qoladani ma xidhnaan karaan. waxaan ka rabnaa shuruudahan caafimaad shirkad kasta oo buuxinaysa inay maaragtay furi karto. waxaa marka kamid ah dukaamada moolasha dadka Soomaalida ah, waxaa kamid ah maaragtay moolasha ama dukaamadan maaragtay saad sheegtay dadkeena oo weliba xilliga ciidda soo dhowdahay laga yaabo inay baahi badan jirto inay adeeg ka soo sameeyaan. walow arrinta ciidda aan gooni uga hadli doono, laakiin haddii ka soo qaad dukaanka Soomaalida, moolasha Soomaalida ah, haddii buuxin karaan shuruudaha ah in 2 mitir dadku ayna isku jirsan karin, in ma garanaysaa gacmo dhaqniinkii iyo wax qalabkii loogu talagalay in gacmaha lagu dhaqo nadaafadda, dadku maaskiga xiranayaan. shuruudahaas haddii buuxin karaan way furi karaan, laakiin haddii shuruudaha ayna buuxin karin ma furi karaan. waa gartay, waxaad carab ku dhufatay oo aad soo qaaday ciidii bilmatalan waxaa jirta haddiiba ay shuruudaha buuxiyaan oo noqoto dadku inay tagaan oo dukaamadii ka adeegtaan oo caruurtooda dadkooda dharka ciidda u soo gataan. dabcan waxay noqonaysaa inay haddana ciidaan oo maalintii ciidda ay timaado. marka ma jiri karaysaa qaab dadku ay isugu soo imaan karaan ama masaajidii dib loo furayo dadkuna ay ciidi karaan, mise taasi ma jirto hadda? taasi ilaa bisha June ma jiriso. go'aamada sida gaarka aan uga fiirsanay waxaanu la xiriirnay 74 masaajid oo gobolka ku yaala oonu la tashanay qayb ka ah taladan maanta gudoomiyuhu ku dhawaaqay. meelaha goobaha cibaadada, meelaha dadka badan iskugu imanayaan bay soo hosgelisaa. sida la aligeed meel kastoo 10 qof ka badan iskugu iman karto way xirnaanaysaa. xilliga ciidana waxaan rajeynayaa dadku inay qaab kale ciidda iyo farxadeeda ay ku wadaagaan inay samaystaan. waa tahay Xamzo, waxaa la isweydiin karayaa dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeednay gobolkan degan oo markii horeba ay ku adkayd raacista amaradii ahaa in la kala fogaado, in aan la isbooqanin. hadda haddii la yidhaahdo suuqyadii iyo goobihii ganacsiga ha la furo, sideebay marka ku suuro gelaysaa amaba lagu ilaalin karayaa marka suuqyada loo furo dadka inay sharcigii raacayaan ay u hoggaansamayaan? ka adinku marka ka dowlad ahaan tallaabooyin gaara miyaad qaadaysaan oo aad arrimahaas kula soconaysaan ka Soomaali ahaansa xataa maadaama qof Soomaali ah tahay xaaladda Soomaalida si hoosana uga warhaya? runtii intii muddo ahayd wada iskaashi iyo wada tashi badan baan lahayn culimada masaajidada, u adeega bulshada maaragtay dadka hoggaanka u ah. waxaa runtii dowladda intaan teeda la gaarinba mas-uuliyaddu ay saaran tahay shakhsi kastoo inaka inaga mid ah in maaragtay iswaaninta iyo dhiirigelinta in maaragtay khatartay arrintani leedahay. waad ogtiin dhowr qof oo Soomaaliyeed baa hadda arrintan maaragtay saamaysay, dad badan oo inaka ah oo weliba
dadka warshadaha ka shaqeeya tiro aad iyo aad u tiro badan oo shacabka Soomaaliyeed marka loo eego tirada gobolka ku nool yihiin tiro aad uga badan baa maaragtay xanuunkani uu saameeyay oo u jiifa marka waxaan rajaynaynaa horta dadku inay iyagu xilqaamaan haddii laakiin ay ka tagi weydo sida hadda ogtahay ilaa dad 44 qof ah ayaa tigidho la siiyey oo lagu ganaaxay inay arintii guri joogga ay maaragtay fulin waayeen waxaanu si adag u hirgelin doonaa laba arrimood kow businessleyda ama ganacsatada shirkadaha waxaanu kula xisaabtaminaa inay shuruudahan buuxiyaan si qofku uu dareemo inuu nabadgeliyo maaragtay waxyaabihii looga baahnaa inay buuxiyaan tan labaad oo su-aashaada ah dowladdu waxay si aada culays u saarisaa in sharciyadan la soo rogay in la raaco oo ah kala fogaanshaha 2 mitir waxay sharciga mas'uuliyadana waxay saaran tahay dadka iyo shirkadaha labadaba marka waxaanu si gaar ah shirkadii arinta fulin weyda waxaanu culays ku saarinaa in maaragtay aanu businesska ka xidhno waxaan rajaynaynaa laakiin inayna taa gaarin oo dadku isxilqaamaan hadda maalin dhaweyd waxaa jira suuq furmay iyadoo aan amar ayna dowladda ka haysanin waxaa suurto gashay inaanu markiiba la soo xiriirnay aanu dib u xidhnay businessyadii nooca ahaa loona sheegay inay laysankooda shaqada ay weynayaan haddii mar dambe furaan oo amarka dowladda garab maraan marka waxaanu rajaynaynaa isxilqaanka ganacsatada iyo shacabku inay runtii wanaagsanaan doonto haddii ay ka tagi weydana dowladdu inay maaragtay tallaabooyin qaado kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfaa wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka ee maamulka gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masacade waraysigaasi oo muuqaalana waxaad ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha VOA idinkoo ka heli kara website-kayga voasomali.com waxaa hadda la gudagalay 10 maalmood ee u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan haddaba wanaagga maalmahan sida muslimiintu isku taakulayn karaan xilligan adag iyo sida ugu wanaagsan ee loo cibaadaysan karo xilli masaajidadu ay xidhan yihiin ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Cabdikaafi Yuusuf Aadan uu ka waraystay Sheekh Mustafa Cabdullaahi Bulxan imaamka masjidka Raxma ee gobolka Ohio bismillahir rahmaanir rahiim waan soo dhawahay barakallahu fiika walaal waa soo sheegtay weeye waxaan ku jirnaa waa bishii Ramadaan khaasatan waxaan ku sii jirnaa 10kii dambe ee bisha Ramadaan ayadoo bisha Ramadaan mar la arko ay fadligeedu aad iyo aad u badan yahay hase ahaatee haddana waxay leedahay cinaayo gooni 10kan dambe sida nabigu calayhi salaatu wasalaam min Aisha radhiyallahu ta'ala anha markii xadiidkii laga wariyay waatay tiri idaa dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqada ahlahu yani markuu nabigu 10kan dambe bisha Ramadaan la gaaro wuxuu ahaa mid dhuuqsada hoos guntigiisu dhuuqsan jiray habeenkiisa idil uu noolayn jiray ehelkiisa uu toosin jiray halka marka waxaan ka qaadanaynaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la imaan jiray dadaal aad iyo aad dheeraad u ah sida isla xadiidka lafdi kale uu ku macnaha riwaayad kale ay ahayd kaana yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayriha wuxuu nabiga kii dadaal calayhi salaatu wasalaam 10ka dambe si uusan u dadaali jirin macnaha 20ka hore ka horeysay halka marka waxaan ka qaadanaynaa inay tahay 10kan dambe 10 aad iyo aad u fadli badan qofka mu'minkaana la rabo inuu aad iyo aad u dadaalo maxaa yeelay waxaa aad loogu malaynayaa inay ku dhex sugan tahay habeenka aadka u qiimaha badan oo ilaahay quraankiisa kariimka uu ku sheegay suuratu markuu ilaahay ka hadlayay inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahr suuratul qadr markuu ilaahay ka hadlayay waa tuu yiri markuu ilaahay tilmaamay subhanahu wa ta'ala annaga soo dejino ilaahay quraanka yir habeenka allay sharafta u saaxiibka maxaa ku weysiiyay nabi maxamed oo habeenka wuxuu ka khayr badan yahay Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala yaani amalka iyo waxa la qabto wanaag oo habeenka asaga ah ee Allah ku waafajiyo subhanahu wa ta'ala kun bilood acmaal aad qaban lahayd oo saalixah oo wanaagsan marka maadaama lagu malaynayo 10kan dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam juhdiga iyo dadaalka tirada badan ayuu la imaan jiray salawaatullaahi rabbi wa salaamuhu calayhi marka waa arin laga doonayo kulligan marka inaanu ka wada faa'iideysano man ahan kaliya macnaha sida xadiis riwaayadka soo tilmaamayaan nabigu asugu dadaali jiray ehelhantiisana uu soosin jiray waxa kale oo ayagana soo aroortay xataa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ummadaba kulli u amray in habeenadaas 10ka ay aad u dadaalaan li'annahu min Aisha waxay tiri kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuhawiru fil 10 al-awaakhir min Ramadan yani uu i'tikaafi jiray nabiga 10ka dambe bisha Ramadan ويقول حورن جرى تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان waxaad macnaha ka raadisaan ku dadaashaan habeenka laylatul qadarka ka raadisaan 10ka dambe bisha Ramadaan axaadiistaas oo axaadiis macnaha saxiix ah sugan waxaan ka dareemaynaa halka inay ku sugan tahay inuu dadaal badan ay dadka muuminiinta sameeyaan 10kan dambe si Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadliga iyo habeenka laylatul qadarka alna waafajiyo
sheekh mustafe waxaa jirtay inta badan dadka muslimiinta ah masaajidada ayay soo camiri jireen tobankan dambe taraawiixay tukan jireen tahajud bay tukan jireen tii hadda ma jirto bal ka waran dareenkaas ku aadan inaan la isku imaanaynin oon tahajudkii la tukanayn oo taraawiixdii la tukanaynin khayr allah ku siiye waa sax horta masaa'ib dhibaatadan cudurkan hadda coronavirus oo caalamka idil camimay asbaabaha waxyaabaha uu keenay waxaa ka mid ah inaanan dadkii isku imaan karin meelaha marka aan la isugu imaan karin xiran ba waxaa ka mid a meelihii aan ku cibaadaysan jirnay masaajida oo kale meeshaasoo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiistii hore aan kugu tilmaamay markii bishan ramadaan la gaaro ictikaaf waa meel lagu ictikaafi ahaan jirtay weliba khaasatan tobanka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay axaadiista ku cad inuusanba xataa bixi jirin oo ictikaafi jiray asxaabtiisana uu amri jiray waxay kaloo ka mid ahayd meelihii loogu talagalay in macnaha qofka uu dee qiyaamkii lala yimaado taraawiixda lagu tukan jiray jamaacadka laisugu imaan jiray khayraadka laisugu imaan jiray waa meelihii aadka u fadliga badnaa marka dhibkan dhacay dartiisba hadda waxaa dhacday inaanan laisugu imaan karin marka ma keenayso maadaama hadda dhibkan uu jiro inuusan qofkii marka inuu ka wada taga maaha wixii qof la arko waxaa la rabaa oo guryaha maadaama aanu joogno in habeenkii dadkii ay sidii u cibaadaysan jireen u cibaadaystaan oo guryaha marka la joogo uu qofkii qur'aankiisii akhriyo adkaartii uu la yimaado qiyaamkii uu la yimaado weliba khaasatan waxaa dhici karta dee guryihii marmarka qaar famil idil oo ama 8 ruux ama 10 ruux ama 6 ruux ama 7 ruuxa jamaaco waa u noqon kartaa in ayagii marka dadkii naftigooda ee cibaadaadkii la yimaadaan oo dee dadkii dhallinyarada ay qaar qaangaar yihiin oo wiilal badan yihiin dhici karto inay marka wada cibaadaystaan oo salaadii ay la yimaadaan jamaacadii dee kuwii faralka ay tahay iyo hadday tahay tii taraawiixda naftigeedii khayraadkana lagu wada dadaalo oo qur'aankiina akhrintiisana aad loogu dadaalo aysan noqonin kol masaajidka hadduu xiran yahay anigu cibaadaadka waan yaraynayna inaysan noqonin cibaadada iyo daacada iyo khayrka iyo wanaagii sidii qofka marka hore loo dadaali jiro kale inaan ku wada dadaalno kulligeen taasaan is wada farayna barakallah dhinaca kale waxaa jirta goobaha cibaadada ama masaajidadu markii ay dhibaata ka dhacdo wadankii Soomaaliya meelihii aadka looga caawin jiray oo aad looga caawin jiray hadda ma jirto masaajido dee u taagan sidee baad uga qayb qaadan kartaan fatahaadaha dhacayo sida Baardheere Qardho Beledweyne waxa weeye Doolow masaajida maanta looga tabarucayo ama looga istaagaysa jiray bedelkeeda maxaa lagu bedeli karaa barakallahu fiik khayr allah ku siiyo waa sax walaal dhibaatadaas musiibadaas hadda Soomaaliya way haysataa fatahaadaas u geysteen macnaha degmooyinka kala duwan oo hadda soo sheegtay ay kamid tahay Beledweyne iyo Baardheere iyo Doolow iyo Qardho iyo kulli ay ka wada mid yihiin waana dad walaalaha naga ah xaqiiqatan musiibo weyn weeye dadku Soomaalidana waxaa lagu yaqaan inay aad isugu gurman jireen waxaan marka qabaa walaalayaal khayr badan Allah idin siiyo biliba bishan waa bisha la samray khayrkii wanaagga qofka nabigu ku dadaali jiray khayrkii sadaqada iyo aad u bixin jiray inaan kulligan anagu sadaqada aan la wada baxnaa kul hadii masaajid iyo goobaha la isugu imaan jiray xiran yihiin waxaa jira dad joog kale oo iyaga naftigooda dadaalayo in meel alli meesha qaabkaad uga qayb qaadan kartid oo aad dhaqaale ku bixin kartid haddii online ay tahay iyo hadday macnaha idaacado kale yihiin iyo hadday dad kale walaalo ah oo iyagana muxsiniin wanaagga sameynaya yihiin qof la arko annaga naga mida inuu khayrka iyo wanaagga u ka qayb kaysto yaan istafaraynaa barakallahu fiikum allah khayr badan allah idin siiyo inta loo dhiibahayana walaalaha ahna waxaan ayagana faraynaa oo aan leenahay amaanadaas nilii dhiibto wax dadka laga soo aruurin insha allahu tacaala sida ay tahay ilaahay ogyahay inaad u gudataan dadka la siinahayana siday u kala baahi badan yihiin in loo kala siiyo intaasaan iswada faraynaa barakallahu fiikum khayr allah ku siiyo saasaanan dhammaan dadka muslimiinta ana waxa loo geysataan oo khayra ilaahay hortiisa idin yaalaan kaasi waxa waa sheekh mustafa cabdulaahi bulxan imaamka masjidka arraxma ee gobolka ohio waxa uu warramayey waryahayga gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadan iminkana dhegeystayaal bal nala dhegeysta qasiidadan ramadaanta intaasina waxay noogu eg idaacaddayadii saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid caawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abiikar intaaynu mar kale kulmi doonno dhegaystayaal sidaas iyo ramadaan wanaagsan
Somalia